Assalaamu calaykum. Nabadgelyo iyo naxariis dushiina ha noqoto saaxiibada sharafta leh halkan ku xiranow. Steve Jobs. Steve Jobs waa mucjisadii sababta u noqday dhismaha mid ka mid ah shirkadaha dunida ugu qiimaha wanaagsan isla markaana loogu jecel yahay. Waa shirkadda Apple. U malaynaayo inuu jiro qof aan garanaynin shirkadda Apple maxaa yeelay waxay dad fara badani ku haminayaan marun inay gataan mid ka mid ah taleefanada ay soo saarno shirkadaas ee la yiraahdo Apple-ka ama iPhone. Steve Jobs mucjisadii ganacsiga dunida ee sababta u noqday dhismaha shirkad ka mid ah kuwa dunida ugu qaalisan looguna jecel yahay ee la yiraahdo Apple. February 24, 1955 ayuu ku dhashay magaalada San Francisco ee ku taala gobolka California ee dalka Mareykanka. Steve ma ahayn qof caadi ah marka sidaa leeyahay ulama jeedo inuu waalnaa ama uu xis kala ah. Balse Steve waxa uu ahaa shakhsi ku soo koray nolol waali ah, waalidnaan ah, isla markaana wuxuu ahaa shakhsi noloshii uu ku soo koray ay ahayd mid aad u liidata. Steve Jobs aabihiis wuxuu ahaa qaxooti Siiriyaan ah. Aabaha Steve Jobs magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdulfataax John Jandali. Wuxuu ku dhashay magaalada Homs ee Syria waxaana dhalay aabe tijaar oo dhul fara badan lahaa. Hooyadiis diinta jecel waxay ahayd hooyo diinta jecel isla markaana aad ugu dhagan dhaqanka iyo diinta Islaamka. Jandali waxa uu ku dhashay Syria halkaasi uu ka soo tegay isaga oo 18 jir ah. Wuxuuna galay Lubnaan halkaas uu jaamacad ka bilaabay balse sanado kadib waa laga ceyriyay Lubnaan maxaa yeelay wuxuu ku biiray kooxo ka soo horjeeda madaxda xilligaas ka talinaysa Lubnaan. Jandali waxa uu wareegay New York waa waddanka Mareykanka halkaas oo qaxooti ku noqday wuxuuna bilaabay jaamacadda Columbia University. Halkaas ayuu ka qaatay shahaadada PhD-da kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda. Isaga oo arday ah ayuu ka helay gabar aad u qurxoon oo German Swiss ah isla markaana haysata diinta Masiixiyadda. Uur ayay qaaday balse gabadha aabaheeda ayaa diiday inay Jandali guursato maadaama uu Muslim ahaa. Taas ayaa sababtay in Jandali uu isaga tago oo magaalo kale u wareego isaga oo maqanayay gabadhii dhashay Steve Jobs. Maadaama ay aad u yaraayeen waxay go'aansadeen inay Steve Jobs geeyaan cisbitaal lagu hayo halkaas oo ay sheegeen inay doonayeen inay ugu yimaadaan dad ka qaata si ay u koriyaan Steve Jobs. Steve wuxuu maxaa dhacay haddaba intaa kadib waxay go'aansadeen inay cisbitaalka geeyaan si dad kale ay u korsadaan Steve Jobs. Sidii ayayna uga tageen cisbitaalka dhexdiisa ayay ka tageen halkaasi oo ay yimaadeen lamaane Katoliga oo doonayay gabar ay korsadaan balse nasiib darro Steve Jobs wuxuu ahaa wiil taasi oo dhaafisay fursadii ay ku korsan lahaayeen lamaane Katoliga wax bartay isla markaana tujaar ahaa. Waxaa goor dambe yimi Paul iyo Clara kuwaas oo raba inay wiil korsadaan balse hooyadiis waa mulkiilaha shirkadda Apple Steve Jobs hooyadiis ayaa u diiday waxayna sheegtay inay rabto in wiilkeeda ay korsadaan qoys wax bartay hantina haysta balse markii dambe way ogolaatay waxayna ku adkaysay isla markaana ay fartay inay iskool geeyaan markii uu weynaadana jaamacad geeyaan ilaa uu guuleysto oo uu qana jabiyona aysan ka harin. Steve wuxuu bilaabay markii ay guriga la keenay isla markaana uu weynaaday wuxuu bilaabay inuu aad u barto technology-ga iyo mechanics-ka ilaa uu markii dambe hindisay shirkadda Apple Computers. Isaga iyo laba saaxiib ayaa bilaabay in shirkadda Apple ay xilligaasi hindisaan. Sanadkii 1976 ayay soo saareen kombiyuutaradoodii ugu horreeyay. Intaas wixii ka dambeeyay Apple waxay ahayd shirkad soo saarta kombiyuutarada casriga ah ilaa markii dambe ay bilowday inay soo saarto electronics fara badan. 1985 Steve Jobs Apple ama shirkadda Apple ayaa laga ceyriyay. Sidee looga ceyriyay? Waa sheeko xiiso badan. Markii uu mulkiilaha shirkadda Apple waa Steve Jobs uu bilaabay shirkadda waxa uu helay maalgelin fara badan taas oo hoos u dhigtay sheerkii ama saamigii uu ku lahaa shirkadda waxaana ay sababtay taasi in dadkii la aasaasay shirkadda iyo dadkii maalgashtay
ay Steve Jobs ku khasbaan inuu iska casilo jagada maamulaha guud ee shirkadda ama CEO Chief Executive Officer. intaasi kadib Steve Jobs waxa uu bilaabay inuu aasaaso shirkad kale oo la yiraahdo Next. balse 1996 shirkadda Apple ayaa gadatay shirkaddii uu aasaasay Steve Jobs ee la oranayay Next, waxayna ka codsadeen inuu dib ugu soo laabto shaqada maamulaha guud ee shirkadda Apple. halkaasi ayuu dib ugu soo laabtay sanadkii 1996. shirkadda Apple xilligaa waxay ku dhaweyd inay burburto. dhaqaale fara badan ayaa soo wajahay. dalabka shirkadda ee telefoonada ayaa aad hoos ugu dhacay, balse Steve Jobs ayaa shirkadda ka badbaadiyay dhaqaale burburkaas baahsan ee kusoo fool lahaa. Steve Jobs ayaa Apple ka dhigay shirkadda loogu jecel yahay ee soo saarta electronicska sida Apple iPhone iyo waliba iPad-ka iyo MacBook. Apple ayaa maanta ah shirkadda labaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida, waxayna ka hor inta aan Amazon kaalinta koowaad ka qaadan. Apple waxay ahayd shirkadda koowaad, waxayna ku fadhidaa dhaqaale dhan $1.3 trilyan. waa dhaqaale ka badan dhaqaalaha wadamo fara badan ama kala bar wadamada Afrika. cajiib. dakhliga sanadlaha ah ee shirkadda Apple ayaa ah $260 bilyan. waa dhaqaale ka badan dhaqaalaha wadamada Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, Uganda iyo waliba Burundi iyo waliba aan ku darno Eritrea. intaasi oo wadan waxaa ka sarreeya dhaqaalaha soo gala sanadkii shirkadda Apple. haddaba Steve Jobs ayaa la weydiiyay bal inuu mar la hadlay aabihiis ama la kulmay, balse wuxuu sheegay inuusan la kulmin ama uusan bixisaynayn inuu la kulmo. wuxuu sheegay inuusan xitaa aqoonsan karin haddii uu ka hor yimaado. wuxuu sheegay inuu u malaynayo inuu mar kula kulmay meherad. wuxuu sheegay inuu gacanta ku salaamay, isla markaana uu gacantiisa aad u ruxay. ma garanayo inuu aabahay yahay. ma garanayo ninkaas inuu aabahay yahay, ayuu Steve Jobs yiri. balse gabar la dhalatay Steve Jobs ayaa sheegtay in qofkaas uu Steve Jobs kula kulmay meheradda uu ahaa Steve Jobs aabihiis oo magaciisa la yiraahdo Cabdifataax Jandari. aabaha Steve Jobs, Cabdifataax Jandari, ayaa sheegay inuu wiilkiisa dhowr mar tahniyad ugu diray dhalashadiisa, balse uusan u soo jawaabin. Steve ayaa inta uusan geeriyo ka hor wuxuu haystay hanti sare u dhaafaysa $7 bilyan. waa lacag ka badan dhaqaalaha sanadkii Soomaaliya soo gala. sanadkii 2011 ayuu ku geeriyooday waddanka Mareykanka. Steve Jobs $7 bilyan uu haystay, waxba kama sii waalidkiis. aabihiis iyo hooyadii haatan waa ay nool yihiin, ilaa iyo imikana lama aysan kulmin. Apple waxay u muuqataa mulkiilaha shirkadda Apple waa Steve Jobs inuu cugdad u qaaday faamilkiisii maadaama ay ka guureen islamarkaana ay ka tageen, ayna doonayeen in Steve Jobs uu noqdo islamarkaana uu hoos yimaado qoysas kaleeto. halmucaadyada Steve Jobs laga hayo waxaa ka mid ah innovation distinguishes between a leader and a follower, oo macnaheedu yahay hal abuurku wuxuu kala saaraa hogaamiye iyo la hogaamiye ama raace. waxaa kaleeto uu yiri, sometimes life is going to hit you in the head with a brick, do not lose faith. oo macnaheedu tahay marmarka qaar noloshu waxa ay kugu dhifanaysaa madaxa iyadoo uu kula dhacaysaa burikeeti, balse ma ahan in aad niyad jabtid ama aad isdhiibtid. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan subscribe saar, furo kambaleelka, like na saar, lana sii wadaag saaxiibadaada. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.